dhoolla-caddaynta carruurta ayaa saaran wejigiisa laakiin gembisyadiisa iyo shuudadkiisu way u naxariis daran yihiin kuwa ka hor jeeda isagu waa Bukayo Saka dhaymanka madow ee Gunners Arsenal wiilka ka dhashay qaaradda Afrika ee sare u haya rajada wiilasha England shantii bishii Sebtembar sanadkii 2001 ayuu ku dhashay Bukayo Saka xaafadda Ealing ee galbeedka magaalada London waxa uu ahaa canuga ugu yar laba walaalaha oo ay dhaleen qoys muhaajiriin Afrikaan kuwaasoo asalkooda ka soo jeeda qabiilada Yurub ee dega koonfur galbeed dalka Nigeria hooyadii waxa lagu magacaabaa Edenek aabihiina waa Yomi Saka walaalkiisa waxa loogu yeeraa Ayumi Saka yaraantiisa ayuu Bukayo ka dhaxlay cishqiga kubadda cagta qoyskiisa oo si daran u caashaqay Gunners Arsenal riyadiisa ugu weyn waxay ahayd xirashada maaliyadda kooxda madaafiicda kadib markii uu soo bandhigay mawhibad weyn laacibka waxa uu aabihii go'aansaday muhiimad gaara siiyo waayihiisa kubadda cagta Bukayo yaraantiisa waxa uu ku wanaagsanaa kubadda cagta aabihiina waxa uu mid dardaaran siin jiray laacibka sida Bukayoba uu sheegay waana inuusan noqon mid isla weyn aabahay waxa uu ahaa hanuuniyaha dhabtay aan lahaa tan yaraanteeda waxa uu fariisin jiray dhulka bilowgii waayaha Bukayo waxa uu ahaa akademiyadda Greenford Celtic kadibna waxa uu tijaabo u galay akademiyadda Watford kadib markii uu jiray 7 sano imtixaan ayuu ku galay safka kooxda Gunners Arsenal sanadkii 2008 uu ku guuleystay si uu xaqiijiyo riyadiisa ka mid noqoshada safka Gunners Arsenal Bukayo waxa uu ku barbaaray cishqiga xidigii hore ee kooxda Gunners Arsenal Freddie Ljungberg waxa uu ka dhigtay kan uu kaga daydo mar dambana waxay fursad u siisay inuu ka hoos ciyaaro Ljungberg kadib markii uu noqday macalinka daayirada kooxda kadibna Saka waxa uu isu dhaafay heerarka hoose ilaa laga soo gaaro kooxda koowaad sanadkii 2018 caalami ahaan Saka waxa uu ciyaaray heerarka hoose xulka qaranka waddanka Ingiriiska waqtiyada qaar waxa uu ka labalabeynayay matalidda xulalka Nigeria England waxa uu sheegay inuu jecel yahay Ingiriiska kuna faanayo asalkiisa Nigeria laakiin laacibka waxa uu aakhirkii ku guuleystay qaadashada go'aan inuu u ciyaaro xulka saddexda libaax ee England sanadkii 2020 Bukayo waxa uu kula guuleystay Arsenal koobka FA iyo koobka Community Shield sanadkii 2020 shakhsi ahaan wuxuu ku guuleystay laacibka ugu fiican naadiga Arsenal sanadkii 2022 sidoo kale waxa uu ku guuleystay laacibka ugu fiican ee daayirada xulka Ingiriiska sanadkii 2020 kadib markii uu codeeyeen jamaahiirta Ingiriiska waana laacibkii ugu horeeyay Arsenal ee ku guuleystay abaalmarintan iyo kii ugu yaraa ee ku guuleystay abid waxa uu noqday laacibkii ugu yaraa ee Arsenal goolal uga dhaliya tartanka Europa League iyo kii labaad ee ugu degdegsiimaha badnaa ee banaanka garoonkooda halka uu noqday laacibkii lixaad ee ugu degdegsiimaha badnaa ee ku lug yeeshay 50 gool markay joogto Premier League